السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا دمانتين واني ذي سلام هيا وواسك الضبلوها كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بلا متناين حسن قرو صاحب كيس قرشو درس كيس كنو لا وراونا قرسيكو ساها جاب كجا لقتي معاني الشورية بناوين شانتا بغا بغوري آدي ماني وناكسن باني ذي الله هاي habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel walba tood adduunyada kaga sugantiin reer nabadina la soo dhawaada sheergareey cajalada aadiyad dhawaanahan maalin ma soo galin wada ogtiin habeenkii baa soo gali jiray markay xaaladdu kala degto yaa live soo gali jiray marka maanta waa degdeg waa xaalad degdeg ah oo cusub weey shirba wuxuu ka socday meesha la yiraahdo Dhuusamareeb nimankii mucaaradka ahaa iyo qaaqlayaashii iyo kuwii hoobiyaha ku faaray labadan maalin waa idin waalayeen baq qarar wax qaylin ku jireen laakiin xaqiiqda anigu iga qabsadaan oo dubulo maanta qaylin maayo maanta si degan oo qurux badan baa wax idin ku sheegaya oo aad iyo aad u degan dhageysta reer nabadii nolol guusha mar walba waa dhinaca anaga guusha mar walba waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo wanaaga dalka ka shaqeeyo ayay la jirtaa kuwa Kenyaan ku shaqaysanayaan iyo kuwa Imaaraad ku shaqaysanayaan waa ka guulaysanayna waa xaqiiqda dhabta Dhuusamareeb waa la isku soo noqonayaa Dhuusamareeb waxba waa la kala qaadi waayay Dhuusamareeb waxba la gorfeeyay Dhuusamareeb waxba ka soo baxay dhageysta mar 180 cisho ayay dhacaysaa doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya 180 cisho bishii waa 30 cisho dhageysta hashi bile waa 30 cisho 180 cisho ayaa xukuumadda loogu daray in madaxweynaha Soomaaliya uu xilka sii hayo 180 cisho kadibna doorashada madaxweynaha ay ku dhacdaan lagu heshiiyo waa xaqiiq dhabe hadalkayga dubulo waad hadda maqlaysaan هذا الكذب بيمغلي ميسان هذا الكذب دقيس وحي دعايما مركي ذي كذب كيريا بقول إيه واللح بلودوي حسن شيخ محمود هل صاروا كدر صدي شيخ شريف هل صاروا كدر صدي هذا الكذب دقيس ومدحوينه صوماليا وجوه الرئي أي لغها كل جان معارض يا مام القبلات دي ما كان معارض كحرم السنة دون فرماجة كدرس سنة إيه وحكم بدن إنه فرماجة كدرسه أو العجاج صار صدان أو هو صاسد لكن كديران ما يرتاسو وهي كده عينوس مرة بيد الدول كيريا لما قضوا بقوينا قلت نما كان معارض كا إيه نما كان أحمد مذوبي الدنيا كيا كي وطن إيه هوراها كلي الرجل وحبان دي ذين الدين قلت والوضع قناع سيء بقول إيه سدات الشو إن دبلوت لقى دور السادة مدحوينه بقول إيه سداتك عشان وأنا يكب اللعبة صو حلست حل دبانة قرنك الصوماليات أقل كوسة إيه أقل كسرة وأنا يبلعبة بريتو مركو مدحوينها إيه ويجا قديس مركو مدحوينها الله كل مبار لبانك إيه وحي لقوة هذلي سو قد بيو أو مقرر سايا سفي على الله وذا هذا ما لنتاس يكب اللعبة ريسا بقول إيه سدات عشو إن مدحوين محمد عبد الله فرماجو حلك سيحي بقول يا سيداتك عشا قده هودنا وإن لغو صحرا حل دبانا قرنك الصوماليين لغو صحراوي عناها نقوليا ودناها نجريا وفرماجو سيدات هلا قارو
صددوده هلا جار لحده هلا جار اسكو سو دماتي annagu 180 cisho uma baahnin dooni mayno ayaga afka naga galiyay hadalka dhigist afka ayaga naga galiyay annagu doorasho one man one vote ayaan diyaar u ahayn laakiin mucaaradow iyo maamul goboleedow iyo qolay Kenya ku shaqaysanayso ya afka naga galiyay inaan 180 aan u baahnayn afka naga galiyaan waa xaqiiq dhabe oo wallahi billahi tallahi beenayn 180 cisho hadda kadib ayay doorashada madaxweynaha Soomaaliya dhacaysaa halka markay marayso labada qodob ee la isku hayay yaan idinka daba geenaya marka qodob waa gado meesha gada la yiraahdo oo Jubbaland ka tirsan yaa la isku hayay Axmed Madoobe dawladda federaalka Soomaaliya waxay siisay 2 sano oo ku meel gaar riisanka loo siiyay waxay ahayd in doorashadii uu ku shubtay ee 3 keena hal baan kala bixi ahayd ee uu musharaxiintii uu xabsguriga wada galiyay ee uu dhibaatada ka dhigay Kismaayo in dadkii kala irdhooway ee reer Jubbaland ee qabaa'ilada kala duwanaha inuu labadaas sano Axmed Madoobe isu keenay yahay uu dib u heshiisiin dhax dhigay yahay Axmed Madoobe arintaa waa ku guul daraystay meeshii gada ahayd dagaal baa ka dhaco dad baa ku dhintay dhibaata ka dhacday si degdeg ahna arinteeda lagu ma xalin karo shirkii socday qaybta Axmed Madoobe iyo gade way ogyihiin annagu dhax taaganahay Axmed Madoobe iyo groupka la socda ee Dani iyo groupkiisa totaliba waxay taagan yihiin annaga nagu soo wareejiya meesha la yiraahdo gado garu Ilaahay bay taqaanaa Axmed Madoobe miiriyuu rabeen uu hor yimaado beesha caalamka ninkay u soo dirsatay UN-ta yaa yiri haddaad qabatid ayr waa kala dhimanayna lagu yiri idaacadna ma dhawaan kartid ninka hor fariiso garama gartora waxa weeye sida ay tahay dhaxbarta ka loogu dhufto beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo international community iyo odayaashii Soomaaliyeed waxa weeye xaqiiqdu dhaxbarta kay taagantahay dawladda Soomaaliya waxay tiri Axmedow inaan heshiino waan ogolahay inaan sudnimaadno waan ogolahay Axmed Madoobe waxa lagu yiri ina adeerow meesha dhib baa ka dhacay dagaal baa ka dhacay xaaladeedu ma sahlano dawladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay tiri waxaan ka tarasulayaa wax walba ka tarasulayaa laakiin inaysan dhibaato dib u soo noqonin rafaadna dib u soo noqonin dagaal dambana dib ugu soo noqonin gado guddi isku dhafe oo heer federaal ah iyo heer maamul goboleed ah alla hala magacaabo guddi xaqiiq raadine aan magacaawno oo aan dirna la yiri aan u dirno gobolka gado si ay xaqiiqda jirto dhageysto Axmedow maxaa diidantahay marka waayahay Axmed Geedanaaro waxa diidantahay waa maxay gada igu soo gada mareerkaaga degan dad baa isdilo qabaylay dad baa isdhabeeyo xabad baa la isla dhacay reeraha barnaamijka baxay reerana gudaha ku jiraan heshiisku waxa weeye halka markuu maray yaa dawladda Soomaaliya waxay tiri guddi isku dhafo xaqiiq raadin oo xaqiiqda dhabta gada ka jirto soo baarto hal magacaabo bees caalamka iyo igad iyo magaraysa dawladda federaalka maamul goboleedka hal isku daraaliyo dawladda qodobkaasi taagantahay dhageysto dawladda arintaasay taagantahay Axmed Madoobe wuu og yahay meesha waxa ka jiro la socdaa diyaar uma aha dadka reegado ee dhibaatadu ka dhex taagan tahay ee xaaladdu ka jirto in guddi xaqiiq raadino madax bannaan oo isku dhaf ah loo diro xaqiiqda dhabta ee gudaha ka jirta inay soo raadiyaan hadday ku taliyaan in magaraysa Axmed Madoobe iyo maamulkiisu ay doorasho ka qaban karaan hadday ku taliyaan dawladda ka qaban karto hadday yiraahdaan dawladda iyo Axmed Madoobe kama qaban karaan ciidamo amisoome hal la keeno si baash dhaxaad hal sabab Axmed Madoobe arinta waadi wuxuu yiri guddi xaqiiq raadin loo diri maayo meesha gado mana ogoli buu yiri gado siday u idishay hal igu soo wareejiyo dhageysto gado siday u idishay anigu aan qabto doorashadeeda waxa la yiri meesha dagaal baa ka jiro oo dib baa ka jiro rafaad baa ka jiro dib heshiisiin bad adigu labada sano hadda ku hesho dib heshiisiintiina wadadeedii fiicneed ma qaadin baa la yiri Axmedow maxaa dabacsantay Axmedow wuxuu la suustay war 16 kursi nimankan gada leeyihiin anigu Kismaayaan wax ku magacaawda buu taagay Kismaayaan ka soo xuli Kismaayaan la imaan Kismaayaan lagu qaban
hawsha bartaasu axmedow la taagayn dowladdiina waxay taagan tahay war axmedow guddi xaqiiq raadine oo isku dhafaan u dirna gadow oo xaqiiqda jirto soo ogaato qodobka halkaasu maraya axmed madoobe shirkii waa isaga baxay sababtoo wuxuu ku doodayo iyo waxa uu sheeganayo inaysan ahayn wax la jadmeenti ah inaysan ahayn wax rag lala soo istaago waa la arkaa axmedow banaanka u baxay keeyaankii wacayay baa wuxuu lagu yiri maya ma dhici karto guddi haddii la soo diro xaqiiq raadin ah oo amisom iyo international community on Djibouti ahayn dhageysta on Djibouti ahayn ilaa Djibouti baa la waxay sameeyay wanaagna guddi federaale oo heer maamul goboleed oo heer amisom oo heer Africa Union oo heer magaraysa UN United Nations oo international partner oo Turkiga ku jiro haddii loo soo diro gado inay Kenyaanku fashilmayaan Axmed Madoobe waa ogyahay in la arki doono waxyaabo badan iyo khaladaad badan la soo diiwaan gelin doono Axmed Madoobe waa ogyahay wuxuu rabaa inuu ceyriinka ku cuno dowladda Soomaaliya in biseelka lagu cuno oo dadka la heshiisiyo oo nabad la yimaado ayay dooraysaa Axmed wuxuu yiri guddi laba soo dirayo guddi xaqiiq raadine oo heer caalami ah oo heer federaal ah oo heer maamul goboleed laba soo dirayo Axmed Madoobe taagay haduu xal yiri marka dadse heshiiska dooraysa bas la tooco heshiiska aad rabtido dooraysa Axmed Madoobe waa maxay baa liyay maxaad rabtaa waayahay maya sida uu idin shaabaanaha geenayu leeyahay meesha la yiraahdo Kismaayo odayaasha marreexaan goolka gada ha yimaadaan buu taagay Kismaayo taarada macquul qalbaha Axmed Madoobe shirki ka bax banaankaas ku qey hadda caawan idinku soo noqon doona live ba soo gali doona insha Allah haduu ilaahay yiraahdo Axmed Madoobe hadda banaanka u baxay idaacadda inuu la hadlo waa loo diiday hooshi waa bariga dhexe waa la isku soo noqonayaa caawada hadda Soomaaliya habeenimay maraysa dib baa la isugu soo noqon Axmed Madoobe wax buu la imaan doona ma ogi wuxuu la imaan laakiin inta hadda lagu kala tagay waa inta dowladda waxay taagan tahay in magaraysa guddi xaqiiq raadine oo caalami ah oo African Union ah oo dowladda federaalka ah oo asaga uu xubno ku leeyahay in gobolka gadal loo diro oo xaqiiqda iyo dhabta jirto la soo baaro oo la soo ogaado halkaana laga ambaqaado haddii asaga lagu wareejin hadday dowladda Soomaaliya ka qaban iyo hadday inta ciidamo amisom la geeyo oo bartaas nabad ilaalin oo sida Kismaayo kale ciidamada nabad ilaalintu saas halka markay taagan tahay yaa nimanka waad ogeedeen wad la socotay dhageysta garu ilaahay bay taqaanaa xaqiiqdayna tagi reenamada cajalada shargareeyo soo dhawaad aadiyaan waatii guddiga doorashooyinka Soomaaliya la isku haystay waatii nimankan mucaaradka ah iyo maamul goboleedyada waatay yiraahdeen guddiga doorashooyinka ee heer federaal waxa weeye waa askar iyo rag dawladda u shaqeeyo weeyaan ee hal la bedelo waatay lahaayeen dawladda Soomaaliya ee uu hogaaminayo radiyallahu anhu madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo wuxuu yiri guddiga doorashooyinka wixii aad idinku ka tabaraysaan iyo cid aad rabtaan in laga saaro waa laga saarayaa baa liir dhageysta dadka idinku soo tafatire Soomaaliya waan tafatiraynaa oo guddiga doorashooyinka heer qaran oo magaraysaa maana dhihin askar baa ku jirto oo shaqaale dawladeed baa ku jirto Soomaaliya madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraheedu waxay yiraahdeen waanu dib baan ugu noqonaynaa waa ka saaraynaa cid allaale cid ku dhigtaan waa laga saarayaa baa idinkuna waxa la yiri guddiga aad soo magacaawdeen maadaama annaga aadna tafatirteen dawladda federaalka aad tafatiraysaan guddiga idinka aad soo magacaawdeen heer maamul goboleedow Axmed Madoobe iyo Daniyow annaguna waxa la yiri qodobadaas ku dhaganahay dadka ma naqaano waxa weey hooshu waa bariga dhexe baashaydan ha loo idlaado sida idinku u leedihiin ha loo idlaado federaalka oon wax u ogolaanay idinkuna ogolaada Axmed Madoobe iyo Dani waxay yiraahdeen annagu federaalka waan idinka wixii inaad noo sameysaan waan ogolna laakiin annagu soo faragelin meysaan sideed xubnood in annagu soo magacaawnay ee heer maamul goboleed waxa weey noo sheegi meysaan halkaas ay taaganta nimanku geemkay rabaan iyo ciyaarayaan waxa weey 8 February la gaaro 8 February inay waqti ila meereyso waqtiga saa u ciyaarsiiyaan oo baashu sida u wareegto oo la isaga daba wareego ay rabtaan dalkaana hormar buu u baahan hor oo u socdaal rabaa waana xaqiiq dhab oo ciyaar iyo kaftan aysan ku jirin waa xaqiiq dhab oo reality weey madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo beesha caalamka iyo baarlamaanka labadiisa aqal oo laga saaray odagan xanaaqsanan idii sheegay oo Cabdi Xaashi la yiraahdo oo hadda warqada xataa Janaayo kule Febraayo lagu jira Cabdi Xaashi 6 Janaayo shir la isugu imaanay male war madaxweynaha dastuuri weey xaq
عبد حاشو إنه ويرو برلمان كصوماليا عطسده أو يرادو حالة دق أيها درتين لبضع أقل برلمان كصوماليا وين يسوي هذا ودستوري عبد حاشو يسون كخلدن ما كان كوش غيشريو معارض يسون كخلدن إن دستور كان أحسن بد هل كان مركب بعشو مرة سؤال كتاعته دولة الصومالية وحي أقلاتي قبل كجدو إن جدي حقيقة رادنة وهير عالمية لودرو الوضع كالسوية أحمد مذوب وادي دي دولة الصومالية وحي أقلاتي جدي دورة شويكة أي ديدين إن فرقين القصمي لقى صاروا إد على عدة أيقو تون كقبان lagu bedelo qof kale oo Soomaali oo muwaadin oo xaq u leh oo dastuurka Soomaaliyeed u ogolaanaya inuu qabto gudiga ka mid noqdo gudiga doorashada dawladda Soomaaliya waa ogolaatay ayaguna toodi waa diideen xaqiiqdu markay taagan tahay barta Axmedow waa nin Kenya ku shaqeystaan maanta markay Kenyaki arinta loo soo bandhigay hadalka ina faataa mar arinta markay dawladdu soo bandhigtay ogolaatay gobolka Gada ka soo degtay meesha ay taagneed Axmed Madow oo cuntamigis in AMISOM iyo UNT iyo dawladda federaalka wasiirro iyo xildhibaano isku jiray asagoo gud xaqiiq raadin rasmi ah نهار أفر جبوتيانه أو إسماعيل عمر قال هاس وجرته قبيلة ذي سنة رصادر ما لا تيستاجان ما هو ولا الوان قيل لي ما هو وان قيل لي ما يريح لما قد حقيقة رادين وربع إن قدر الله صدره أو بارتان ربع اللي قصوي أحمد عمر كوهرو وشجعي وكايا كويري ور دولة هير كاسة تاجت هاي oo beesha caalamkii iyo dawladda Soomaaliya isla socoto oo guurayso diyaaradahood yaa soo socota markii lagu yiri yaa uhuru ka yeetona hatu taaki ha ogolaanin did shirjiraadna qabo shirjiraad soo qabanayo TV-giisa lagu soo bandhigay Axmedow oo lagu soo qoro TV-ga shir buu qabanaya liir yaa Yamamoto iyo waxa soo wacay iswirin waxa lagu yiri adeer macaan hadaad isdhaqaajisid هداد إصدقاء جسد بالوري دلك الصومالية نقارب بدن بين نجا لوير هداد إصدقاء أحمد وحاول سبويلسكي أرجع يصير قدر يناول لوير والله مريكا ترى من الرد كتك نمكي وحصلنا قد ديمقراطية وغيرسنا يي مقرش ساي ديمقراطية دي اللي ركرته وينك سبويلس صوصة يا ديار دي لقوه فصحيح أحمد وعبسي وباش عالم كبقي يشارك جراد وجوجي هالك بعاش مركي مريش ويبرتها تاجته هالك مريش يا ربا مركينا حقيقة ربطة إيه ريالة تجينا دوقتين ريالة تجو واحد تاي وحاوي دور صد الدلك الصومالية هل ننه يجو حرام تاي هل كان لنا وأحمد مذوب إنك يجري هذا وأن قرشة سياسة دينا وذنن سياسة دلك إيه أمضنا الصوماليين لوها جاي هر لجوا ذينا أنا وذن لما كان معارض كواحد مانديد هيستان إيه هذا الكود قيمة وليه مجرد نك مانديد كهيستو إلا بس لو كمل جار للسيء ساعة لسجدة ورجعني ونك أحمد مذولينا أحمد مذول بيش عالك ما توارك هل كان مركي مرش ويباش برتا تاجتها بقول إيه سديتا عشو ما نكبر ريحة مركي برلمانك إن شاء الله ما أنتم برلمانك مدحونها الصومالي صح سوكا وسوقد بي وأنت عن إديش شيء يسوق دور عبد الحميد أو إن أحمد مذوبة أنت الله هردي ودي ذي إن مدحونا محمد عبد الله فرماجة والديار النقطة جدّي دور الشويكة أي شك كي قبين إنه صهر نجو أو يديدين أرنت أيضا أرنت السوماليلان أو رير إذلنا أنا أهينه رير سومالي مركل الولاية هي باش الدريد أي كتير سيء وعقربه دتكين لوالو لجه وريريو مسكحوا لو عيار وهناك سنما رير سوماليلان تلقوا شيء سوماليلان مركل هذا السوماليلان نرى الدولة السوماليلان علينا البهاتها كتر سنة الله عارض عليك السوماليلان بكتاج وربور ما كتر سنة عليك السوماليلان بكتاج ورماش اللي يراده دولك ورسنجليبها السوماليلان كتر سنة عليك السوماليلان بكتاج وحاصل نبى السوماليلان لسكول هذا عبد حاشي مركز دتك جذا بيرسي يا دتك البهانته يا دتك ورسنجلي يا دتك عيسى يا دتك إسحاق السوماليلان دقن عبد حاشي مما تلده مدح ملم مثل السوماليلان ترى مجرو عبد حاشي وحى ومثليه أولاد واقعيه وجفير وأساكن الشغل يرادو رشق إسحاقوي ما قي كليه دلك الصومالي مركي در لي يرادو لحدني يكوي كليه قال بيرسي إنتو ليه أسا صوحرا أما محمد عسا ها حكمه أما جاف خلا ها حكمه درتن كلا دجن كوفرت الدجارة بي مال إيو بقرا ساي درتن فرح بدن أيها دت كود صوحرا عبد حاشي وحول الله واقعي وصدر يلا بح اللبان
oo isaaqi de nimanku waa carruurteeda raabtooda laandheeriyaasha isaaqa ilaa iyo magaraysaa isaaqii de oo arab leh oo habar wuxuusha leh oo habar magaalo leh yuu leeyahay 32 xildhibaane beesha isaaq anigu aan ku yeesho guddiga matali doono hooshooda matalay oo guddina mehe xildhibaanada 32 xildhibaane beesha isaaq oo laandheernimo baasha la soo laandheereynay yuu leeyahay magaraysaa aniga aan madax ka taabasho sameeyo oo rag 20 sano dalkan iska fadhiyo nimankan isaaqa waa matalnaa yiraahdo oo la gareyn oo qasayso soo yuu rabaa inuu yiraahdo hebel igu soo celiyo oo maamfoosiyi ku jiraano damul jadiid uu yiraahdo aniga aan doorto marka halka wax qabiil dhusmareebna qabiil looga baahdo waxa looga hadlaya doorashada dalka Soomaaliya qaabkay ku gaarlay halka markay baasha marayso yaa shalay iyo darad yaa la yiri ninkii mahad guuleedaho marka halka faham Soomaaliya hadda waxa haysto niman la yiraahdo hawarawal yaa madaxweyniyaalka wadu bulo la fuha nimanka habar awal yaa hadda Soomaaliya madaxweyne ka nimankii garxajis ah iyo garasana nimankii habar jacale banaanka lagu dhufto geedka lagu dhufto nimankii garxajiska ah waxay soo aadeen koonfurta Soomaaliya hadalkan dhageyso koonfurta Soomaaliya soo aadeen midnimadaasi aaminsiin Soomaaliya calankeeda dib u soo noqday aaminsiin halkaas baasha maraysa gudihiima marka joogna way yaa nimanka waxa la yiri habar awalay iyo Saacad Muusow iyo habar magaado igu garasa iswato Soomaaliland baad haysataane baasha magaraysa halka maamulo nimankii garxajis oo ugu sareeyo ninka la yiraahdo mahad guuleed oo ra'iisul wasaarku xigeenka dalka Soomaaliya yaa yiri maadaama de habar baashiyay habar awalay aad haysataan Soomaaliland de noo daayad anaga shaqo tagnay anaga shaqo tagnay mudshaadnay noo daayad de baashiga ma haran nimanka habar awala oo ninkan Cabdi Xaashi Saacad Muusa Cabdullah muxuu Cabdi Xaashi Cabdullah oo habar awale yaa wuxuu rabaa Soomaaliland inuu xukumo isaaqi joogay koonfurta Soomaaliyana inuu yiraahdo anaa matalo habar yoonisay iyo ciido galow baasha cirka geey adeer bacaan ma nin kala dheersora arigu digar xajis ku soo sawlaadna wareetolka waxa weeye no way gar xajis Soomaaliland hargeysana lagu matalo canshuurta looga qaado there is no way koonfurta Muqdisho marka la yimaadana la yiraahdo anoo nin Saacad Muuse oo hawar awale yaa matalo wabas la qubayayday وايش لقمة يا والله ويقول لي أنا قام مثله وريا دتك المسؤول كاجا دقيقة عند حاشيو يا مسؤول كاجا دقيقة هذي درجة نقطة درجة دلك الصومالي أقول سريشة وين رجل وزارك وياك وقتي هاي هالك باش كل إيران مايو لكن حقيقة تالت تالك زمرسة نمكي مركو وسوت غير ساقها وحا اللور ديانو دن وصدني الله بدا مرك وح مهمة sababtoo ah markay qabaylada lambarada la kala qaato 32 bees isaaqe yaa dadka madaxweyne ka dhigay marka anigu dibaash seeta barogto 32 yaa dhinac urudis haday raacaan mucaaradka waxa weeye mucaaradka soo baxayo haday dhinaca nabadii nololna soo raacaana anaga dib u soo noqonayna waa tiro aad u adag weey marka tirada marka aadka u adag yaa la challenge-ga jira dhawaaqa jiro ee xasanka ordayo ee magaraysa dhurwaaga ordayo ee magaraysa adarkiis waxa wada carray adarkiis waxa weey waa 32 beesh isaaq weey hadana khaldanayn halka baashu markay marayso baashu taagan tahay anigu warka u soo galay sheekadan caawan ka hadli doona insha Allah markaan live dib ugu soo noqdo yaan baashan falanqeey doona waxaan u soo galay inaad ogaataan oo la socotaan in 180 cisho oo macnaheedu yahay 6 bilood hada kadib in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee doorashadiisa dhacayso ninkii wax isku hayow aan saragna 180 cisho kadib aan saragna darmacaan been bay baratay dhawaaq ardaya ala isla meeraysanaya axmedowana waxa ku qasbayna xaqiiq dhabe oo tagayso oo xaqiiq dhabe oo san diidayn oo wallahi san diidan in guddi xaqiiq raadin ah oo heer federaale oo heer maamul goboleed oo heer oday dhaqameed oo heer amisoome oo heer magaraysaye ee loo dhan yahay beesha caalamka u dhowda oo safiir leh in la tago meesha la yiraahdo gadow la soo shaandheeyo loogaado haday
siday tahay Axmed Madoobe sheeganaya in asaga la yiraahdo doorasho ka qabo hadday siday dawladda sheeganaysana dawladda la yiraahdo haddii la yiraahdo labadiinaba ma qabanaysaane baasha beesha caalamkiiya amsom 22 kun oo askari baa ka joogtay kun askari baan geerayna gobolka Gadow iyo Garbahaar iyo meesha doorashada ka dhacayso halkaas ay maraysaa hadalkan qorta meel ku dhigto wana duqbulow wana la socotaan oo tirada duqbulow odaga duqbulow ah أنا معنا بقول إيه اللحدن بقول إيه سديتن مالين أيو نوشي واللح بلود هذا كذبة أنا وين سور تاجنا إن شاء الله مركي يزن فبر هلا جارة بابا واسك صدبان هلا باش مركي مرس وهلا يتاجتها ويبرتها سوى نكسر تاجته فهمتين مدحوين محمد عبد الله فرماجو دل كان وح ونكسر بقبته باش عالم كان مدور يسو إندب لونه إندب لون نقضه أو دبعتي عبارتي هانتي بوب كتب لون نقضه باش عالم كم دوريش صومالين ما دوريش وح الراذين إنه وحوي إن هور لوصل هل كان مركب باش ومريش مدحوين محمد عبد الله فرماجو ومدحوينه وهري صوماليا صومرو كو أتكستي دورش إنه وقت هذا كله لكن مر والبقى النظام ودجيه والنظام دولي ودستوري وحق له مرك ودجيه ودياريه أحمد مذوبة بوذا وحيري كمجر هشيس كاس فرماجة الله وما إيه ذكره دورش وديبو دقي والله بان لقوا إيه ذكر والله وبالله الله بان لقوا إيه ذكر صوبته وين مان وين فوت أيو ديار وين وقبته نما كده واقع يا أحمد مذوبة يعني ما كان معارض كشجرية إيه الله هايين وين مان وين فوت ما قول وضياشة عدين دوره محوجة ودنيتها يا عدين دوره رجل هوا عيجة شركة سبتمبر 2020 اللي جاري اللي قد يقاب كي دورشة كل عيشه نك إذا عدى يمد سبريرة أودي ذي شيز جبيه وأحمد مذوبها ما أنت لكري لا يوصل أحمد مذوبة تكسون قدي هذا نوى ذهر فريسن أو والله بينهين أحمد مذوبة فرماجة ذهر فريسن فرماجة وحكونه أنا هذا كل شيء سكريبت فرماجة وحكونه أو كورن وحاول يجود حقيقة راذلة هالله درجته وهير عالمي هذا ديدنا هذا دباش وكرسارنت وعقيد هل كاسي مريسا أنا وشغال كجرا إن شاء الله ما شاء الله وشغال سريع وحاول إن شاء الله هدو إلهي رادو نبت إنه الواقولي ستي بقول إيه سديت عشو أيوم مدحوين محمد عبد الله فرماجو ده الكسيح حكومية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.